Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay gudaha u galaan deegaanka Masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo muddo toddobaad ah oo dagaal ku dhex marayay kooxda argagixisada ee Al-shabaab iyo ciidanka qaranka. Maalmihii la soo dhaafay, duqeyn aan kala joogsi lahayn iyo dagaal toos ah ayaa ka soconayay deegaankaasi kadib markii kooxda Al-shabaab ay isku dayday inay xajisato deegaanka Masaajid Cali Gaduud. Deegaankani oo ah mid istiraatiiji ah isla markaana marin muhiim u ah deegaanada kale ee gobolka Shabeellada Dhexe ay uga sugan yihiin kooxda argagixisada ee Al-shabaab sida degmada Aadan Yabaal ayay isku dayeen inay si adag u difaacdaan. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay leedahay ee Bayraktar ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay si xun u garaaceen goobihii ay argagixisada uga dhuumaaleysanaysay gudaha deegaanka Masaajid Cali Gaduud. Kooxda ayaa soo bandhigtay sawirrada xarmahoodii oo duqeyn lagu burburiyay iyagoo ku andacoonaya in goobaha la beegsaday ay tahay goobihii danta guud. Dadkii taageersanaa mooye kuwa kale ayaa isaga cararay deegaankaasi, goob kastana waxaa ku jirtay argagixisada, sidaasi ayayna diyaaraduhu u beegsadeen. Halkani waa iskuul weyn oo bulshada deegaanka ay dhisatay, balse maalmihii lasoo dhaafay ay argagixisadu gabaad ka dhigatay, taasi oo keentay in gebi ahaanba lagu burburiyo kadib markii ay diyaaraduhu arkeen in kooxdu ay ku dhuumaaleysanayso. Wararkii u dambeeyay aan ka helayno deegaanka Masaajid Cali Gaduud waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay gudaha u galeen isla markaana si buuxda ay gacanta ugu dhigeen kadib markii la laayay inta badan argagixisada halkaasi ku sugnayd, intii kalena ay isaga firxadeen gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo xalay. Howlgallo mina baaris ah ayaa saaki ka soconaya gudaha deegaanka Masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada Gorgor ay ka sii gudbeen deegaankaasi oo ay maanta ku jihaysan yihiin degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Aadan Yabaal laftigeeda wararka aan ka helayno waxay sheegayaan in argagixisadu ay isaga carareen intooda badan. Gaadiidkii ugu badnaa ayaa la sheegay in xalay halkaasi ay kala baxeen, isla markaana goobo teel ah ay ka joogaan degmadaasi. Degmadani kooxdu siima haysan karto haddii Masaajid Cali Gaduud gacanteeda laga saaray, ayay leeyihiin dadka sida dhow ula socda dagaaladani u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo argagixisada Al-shabaab. Kooxda Al-shabaab ayaa deegaanka Masaajid Cali Gaduud isdifaacii ugu badnaa ku gashay, hase yeeshee iyadoo hal askari aysan ku dilin ayaa iyagii lagu dhameeyay kadib markii duqeyn aan kala joogsi lahayn lala dul tegay. Waxaana la sheegay in maanta dariiq kasta oo ku yaala deegaanka Aadan Yabaal uu daadsan yahay meydkooda. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa halkaasi ku galay khibrad dagaal kadib markii degmada Aadan Yabaal laga jaray deegaankaasi Masaajid Cali Gaduud. Waxaa la sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay aysan kooxda Al-shabaab ee ku sugnayd ama ka dagaalamaysay gudaha deegaanka Masaajid Cali Gaduud aysan helin wax saad ah oo uga yimid deegaanada kale ee gobolka Shabeellada Dhexe, taasi oo keentay in baahi, duqeyn iyo dhiigbax kooxda halkaasi lagu laayo. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka oo ugu horeeyaan Gorgor ayaa la sheegay in deegaankaasi ay maanta gudaha u galeen, isla markaana halkaasi ay ka socoto mina baaris xoog leh.